marka u horeysa inaan soo dhaweeyo bogaadiyana tiimka dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee isku howlay in ay sameeyaan barnaamijkan Somali Trade Show bandhig ganacsiga Soomaaliyeed oo lagu qaban doono dhawaan Hotel Elite oo ay rabaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo bandhigeen ganacsiga Soomaaliyeed ay ka qayb galayso aadan ugu faraxsanahay anagoo ku hadlayo magaca rugta ganacsiga Soomaaliyeed in barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij dhaxalgal ah macna badan bulshada dadkeena u sameeynaya aadan u soo dhaweynayna asal mar ahaan mid kale waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed inaan ugu baaqo in ay ka qayb galaan arwooyinka noocaas oo kale faa'iidooyin badan ku jira arwooyinka waxyaalaha laga faa'iido waxa kamid ah isbarasha ka imaanaysa xiriir ganacsiga meeshaas ka bilaabanayo oo gudaha iyo dibadda ah macmiil badan ka helaysa qofku wuxuu noqonaa marka in bulsho badan oo aqoonin inay barato waxa kale oo ka imaanaysa in wax badan maaragtay aad meeshaas aad maalmahaas kooban ay kugu gadmaan ama xiriir badan aad ka hesho marka waxaan ku bogaadinaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay arwooyinka tiigsadaan kana qayb galaan khaasatan arwadan Somali Trade Show in ay ka qayb galaan oo maxaan ku iraahdaa aan iraahday lagu qaban doono waliba meel xeeb ah aad u qurux badan macna badan u sameyn doonto dalkeena iyo dadkeena marka waxaan leeyahay aadan ugu bogaadinaa dhalinyarada yararka ah oo mutacalimiinta ah oo barnaamijkan quruxda badan la isku howlay oo shaqo qurux badan la bulshada u qabanayo oo waliba ganacsiga wax badan ku soo kordhin doona waa aadan ugu bogaadinaa Somali Trade Show bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed shaqada quruxda badan la ay qabanayaan rugta ganacsigana qayb ay ka tahay markastoo carwo la qabanayaan wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsigu labaduba qayb ay ka yihiin inay carwooyin qayb ka noqdaan sababtoo waxay ka mid tahay shaqooyinka u culus oo laga rabo rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsigu inay qabtaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ninka barnaamijkan isku soo dubariday Injineer Cabdisatar iyo agaasimihiisa Xuseen oo asaga laftigiisa maarta shaqooyinkan muddo lagu soo noqonayay arrintan qabashadeedana aad uga murugay marka Cabdisatar si gaar ah kugu mahad celina waan mahadsantahay